wuxuu tilmaamay waqtiga ay tahay inay iska joojin doonaan dagaalka Iran oo ay isaga laaban doonaan dagaalka. haddaba maxay ujeedadiisu tahay? miyuu qiranayaa in laga adkaaday mise wuxuu leeyahay inta kuwa maalmaha uu qabsaday uu ku soo afjari doonaa dagaalka uu baabi'in doonaa muxuu samayn doonaa? haddaba wararka arikaa ku saabsan iyo warar kale oo arikaa ku xiriira ayaynu marka hore barnaamijka ku bilaabaynaa. haddaba warbixinada ugu dambeeya waxaa la sheegayaa madaxweyne Trump inuu yiri waan isaga tagi doonaa Iran 2 isbuuc ilaa 3 isbuuc gudahood. haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu sheegay in dagaalka Iran gabagabihiisu uu markaa dhow yahay, wuxuuna sheegay hadafkii asaasiga ahaa in laga hortago Tehran inay samaysato hub nuclear ah in markaa la soo gabagabeeyay. haddaba waxa uu sheegay in 2 ilaa 3 toddobaad gudahood ay markaa Mareykanku ay isaga hari doonaan dagaalka oo ay isaga bixi doonaan. ninkan marka wuxuu leeyahay 2 ilaa 3 isbuuc bas isii sheekadan waa soo dhamaynaa waana iska soo laabanaynaa. dagaalka waa kugu dheeraaday, dhiiqa lugaha la gashay, kan waaye wixii gudaha looga kacay, meel kasta looga kacay. ninkan marka wuxuu leeyahay 2 ilaa 3 toddobaad isii. ninkan marka ujeedada marka maxay tahay? uu 2 ilaa 3 isbuuc kadib waa iskaga baxaynaa uu leeyahay. hadda marka waxaa la ogaaday ujeedada rasmiga ah inay tahay inuu doonayo weerar cir iyo dhul ah inuu ku qaado, bambooyinka uu haysta dhan uu ku daadiyo Iran, meelaha uu isleeyahay gantaalaha ka soo dhacaya kulli uu markaasi gantaalo iyo bambooyin ku garaaco. markaa kadib uu garawsado in Iran aysan marka waxba samayn karin 2 ilaa 3 toddobaad. marka ciidamada ayaa u sheegay 2 ilaa 3 toddobaad inay Iran ka takhalusayaan. wixii ay sugayeen marka muxuu ahaa oo ay bil intaa u soo wadeen? waxay leeyihiin ayagu bil Iran way dagaalamaysa oo ku saabsan hawada cirka ayay ka dagaalamaysa. waxay Mareykanka u diiday inay hawada Iran galaan diyaaradaha waaweyn ee bambooyinka waaweyn ridaya. hal bil waa loo diidaale. marka abaanduulaha ciidamada Mareykanka ayaa hadlay marka saakay, haddaan idin tuso warbixinta uu laga qoray. haddaba abaanduulaha ciidamada Mareykanka ayaa sheegay diyaaradaha waaweyn ee B-52 inay markii ugu horeysay ay dul marayaan hawada Iran oo ay howlgallo ka sameeyeen saacadihii la soo dhaafay. marka ma ujeedaa meesha marka waxay leeyihiin fursada nooga soo baxday oo difaacii cirka ee mucjisada ahaa ee hal bil hortaagnaa diyaaradahan waaweyn inay hawada galaan ayaa hadda meesha ka baxay. marka hadda 3 toddobaad jugta haddaa si fiican uga gelin kuleeyihiin Iran waa lagu kala baxayaa uu leeyahay. waayahay diyaaradahan marka ninkan uu sheegayo maxay shaqo oo qabteen oo howlgala ay sameeyeen? haddaba isla aan idin tuso warbixin saakay la qoray. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxay soo bandhigeen video ay muujinayaan in duqaymo culus lagu sameynayo Iran. duqaymahaas oo waliba ah taxtal ard, macnaha dhulka hoostiisa godad ku jira ayaa la duqaynayaa. yaa duqaynaya diyaaradahan waaweyn, bambooyin waaweyn ay ku daadinayaan. macnaha maxay leeyihiin dhulka hoostiisa waa gaari weyne. markii hore diyaarada aan ku weerari jirnay diyaarada la soo riday mid aan dhaawacantay mid aan dagaal ku jireen. hadda laakiin waxaan awood u helnay diyaaradaha waaweyn ee B-52 ah oo bambooyinka waaweyn ridaya inaan ku weerarno Iran oo aan tagno dhulka hoostiisa waxa ku jira. soo Iran ma haysato magaalooyin dhan oo dhulka hoostiisa gantaalaha iyo waxa dhan u yaalaan. marka meeshaasaan u gaarno waxaan u baahnayn diyaaradahan waaweyn. marka 2 ilaa 3 toddobaad haddaanu hawshaa jugta ka gelino waa dhammaanaysaa ay ku leeyihiin. marka Trump marka sheekada uu leeyahay 2 ilaa 3 toddobaad xaalku waa soo gabagabeynaynaa. marka arrinkaas ayaa marka laga wadaa.
markii weerarada culus ay qaadeen oo ay laabteen isla markii weeraro culus ee Iiraan iyaduna soo qaaday oo jawaab ah war annaga nama gaartaan 2 isbuuc iyo 3 isbuuc waxba noogama qaadi kartaan waxa aad jugta ka geliseen annaguna jugta ka gelinayna ileen haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Iiraan iyana talaabooyinkii ay qaaday Iiraan waxay weerartay saldhig Mareykanka uu ku leeyahay Sacuudiga waxaana la sheegay dhaawacu inuu kor u dhaafay 200 oo qof waxa sare u kacay weerarada dhaawacyada gudaha Israa'iil iyaguna sare u kaceen waxa soo kale la duqeeyay Tel Aviv waxaa laga duqeeyay 20 goobood oo markaa waxaa la sheegay Israa'iil iyaduna inay sheegtay inay weerartay dhowr goobood oo meelaha hubka iyo baaritaanada lagu sameeyo Tahraan haddaba warbixinada marka way sii socdeen weerarada dhacay waxaa la sheegayaa dab xoog leh inuu ka kacay Bahrain inuu ka kacay oo weerar Iiraan ay soo qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain waxay sheegtay in dab xoog leh uu ka kacay waddankaas mid ka mid ah shirkadaha waxaana la sheegay weeraradaas inay sababeen dhanka kale waxaa la sheegay inuu isaguna dab xoog leh ka kacay airportka Kuwait oo markaa ay bartilmaameedsadeen diyaarado daroor ah oo ka yimid dhanka Iiraan wararka kale soo kordhay waxay sheegayaan in iyana Xisbullah weeraro culus ay qaadeen iyo Iraaqiyiinta oo iyaguna weerar culus qaaday oo jeeda marka waxa waaye waa la isgaraacay xalay Iiraan iyo awlaadeeduna waxay garaaci karaan garaaceen iyadana Iiraanta waxay sida Mareykanku sheeganayaan diyaaradahooda waaweyn ayaa markii ugu horeysay fursad u helay hawada Iiraan inay galaan iyagana wixii bambooyin ay haysteen ayay halka ku daadiyeen ayaa leeyahay oo weerar culus ay halka ku qaadeen waaye marka sheekadu marka halkaas ay joogtaa oo marxaladda hadda ay wax marayaan waa marxaladaas ninka Trump marka wuxuu leeyahay 2 ilaa 3 isbuuc gudahood sheekadan way soo dhamaanaysaa marka weeraradaas maxay keeni karaan dadka khubarada marka maxay ka yiraahdeen marka waxay yiraahdeen hadii ay waxa Mareykanku sheegayo sax tahay oo diyaaradaha waaweyn ee bambooyinka daadinaya ay marka hawada Iiraan galeen Iiraan marka waxay leeyihiin waa loo yaabaa sababtoo ah diyaaradahan waxay ridayaan bambooyin culus oo diyaaradaha dagaalka caadiga aysan qaadi karin ee qaaday oo waliba dhowr xabba ayay ku dhufanayaan xataa waxa leeyahay hadaysan helin meelaha gantaalaha iyo waxa kan ay yaalaan xataa hadaysan ku dhicin meel kasto Iiraan kamid ah ay ku dhacaan khasaaro weyn ee u geysanayaan marka sheekadaas marka waxa leeyahay dagaalkii uu soo adkaanaya maadaama bishii labaad la galay hawshuna ay adag tahay dhanka kale Israa'iil waxay sheegtay in ay dalkeeda u diiday wasiirka gaashaandhigga ee Faransiiska ma noo iimaanay sidee macnaha qorshe hore oo uu ku tagayso gabadha wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa jiray qorshii marka waa la kansal ma noo iimaan kartay sababta marka maxay tahay Faransiiska waxay diideen maraakiib hub wada ama wax wada oo Israa'iil u socota in dekedeedu ay ku soo xirtaan ama diyaarado hub wada inay halka ku soo xirtaan oo halka u gudbaan Yurub warkeeda marka waa cad yahay mucaaradadu waxay la soo baxday dagaalkan ma rabnay leeyin anaka waa Spain waa aragteen Talyaaniga barnaamijka xalaa ku soo qaadanay Mareykanka diyaaradihiisa way diideen Faransiiska waa kan wixii oo dhan waa kaas dhanka kale Ingiriiska iyaguna waxay leeyihiin annagu difaaca cirka ayaanu saaxiibadeena gobolka u geynay si aan weerarada uga difaacno weerarada ku socda si aan uga difaacno ayaynu difaaca cirka halka u geynay leeyihiin waaye marka sheekooyinkaas oo dhan marka waxay muujinayaan xaalku inuusan wanaagsaneen inkastoo la leeyahay Pakistan dadaal badan ay ku jirtaa ayadii Shiinaha hadda waxay wadaan hawl in maartay bal waan iyo wax lagu dayo sheekada laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo isaguna saacada ka hor hadlay wuxuu sheegay Abbas Araghchi ninka la yiraahdo
inaysan iiraan marnaba xabad joojin rabin xabad joojin maba rabneen ilaa waxa rasmiga ah ee lagu heshiinayo ay wax kaamila noqdaan laakiin xabad joojin aan la qaadana kana ma rabneen dagaalkan meelaa lagu soo ogaanay taagi nimanka iiraaniyiinta waa niman imtixaana waaye niman sahlan maa bamkaa rabti soo tuuray taagi waxaa rabta keen anaguna intaan jugta ka geli karnaa nagta ka saarayna xaalku markuu halkaasu ayaa marka laysu marayaa warka kale oo aadka u xiisaha badan oo markaa saakay soo kordhay muxuu yahay saakay war la yaab lahaan arkay waxaa leeyahay silaax aljaw waxaa leedaha ciidamada cirka ee israa'iil saakay dhan waxay la dagaalamayeen diyaarad daroon ah oo xuutigu leeyahay war xuutigu baalsana xuutigu caadi maa way u goynay halkaanay ka baxay dhowr diyaaradood ay kuwa adeegtay oo meeshii loogu talagala ku dhacay marka mid ayaa waxay raadineen meel ay wax ku og tahay inay ku dhacdo markaasaa waxaa loo soo kiciyay intaasoo diyaaradood si ay ula dagaalamaan way soo gaabinay xaafadaha dhexdooda ka dhex baxay maxaa samaynaya adi dadkii dhexdiisa ma diyaaradda dagaalka ma madface ku dhufane dadkoodii may ku dhufane meel walbaa laga maray qaar waxay leeyihin 20 daqiiqo ayaa ilaa ay meesheedii ka tagto ayada iskeed u qaraxdo wax waa laga qaadi waayo qaar waxay leeyihin 20 ma ahane 40 daqiiqadooda la bursanayo oo diyaarad kasta loo kiciyey sheeka la yaab la xuutigu ka sameeyeen meesha waxaa sidoo kale xuutigu soo rideen gantaalo israa'iil waxay tiri gantaal yaman ka yimid ayaanu ka hortagnay xuutigu waxay beegsanayaan junuubka koonfurta waa meesha nuclearku yaalo dimona la yidhaahdo ilaad iyo dhulkaasoo dhan ayaa siiriga digniinta saaka isaguna is haystaa xuuti ayay u xiran tahay aagaas haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyey jariirada la yidhaahdo waala ee israa'iil ka soo baxda wararka ay qortay waxaa ka mid ah ciidamada cirka israa'iil inay markaa baadigoobayeen diyaarad daroon ah muddo ku dhow 20 daqiiqadood ayaa diyaaraddaa la raadinay ilaa iskeed meeshay rabto ay markaa ugu dhacday ayaga 20 leeyihiin laakiin macaariif waxay leedahay 40 daqiiqo 40 daqiiqo hal diyaaradaa la bursanaa daroon kuwa bursanaa waa diyaarado dagaal helicopter waxaan dhan waa la raadinaa iyadii la raadinaa xagee ka baxday halkaa 2 sar dhexdooda ka baxay oo dhibanka xuutiga farsamadooda loo dhawaa karba marka dagaalku markuu halkaasuu joogaa saakay iiraanna waxa waaye jugta laga geliyay iyaduna iyo awlaadeeda waxay hayaan jugta ka saareen dhanka kale waxaa la sheegayaa gabar suxufiyada oo shalay laga afduubay magaalada Baghdad gudaheeda oo Mareykan ah hadda Mareykanku waxay leeyihiin waxaan aaminsanahay xilo sirdoon oo aan helnay awlaadii Iiraan inay afduubatay gabadhaas oo macnaha kooxaha hubaysan ee Iraaqiyiinta Iiraan taageera inay ka haysteen Mareykanku markuu waxay leeyihiin mar horaan muwaadiniinteena uga dignay isaga baxa meelahan aan niri maxaa keenay ayada u taala leeyahay marka ayadii marka waxaa la tagay awlaadii Iiraan ayaa ka haysatay saakay warkaas soo baxay shalay la afduubay saakay Mareykanku waxay leeyihiin waxa ka haystay nimankii awlaadii Iiraan ayaa ka haysatay haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa war goordhow soo dhacay oo ku saabsan xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo NATO ninkii Trump ahaa luqadda uu ku hadlay kuwa dhan ku hadlaan horta sidooda wasiirka gaashaandhigga hadduu hadlo kan arrimaha dibadda hadlo hadalkii Trump le ku hadlaan marka ninkii wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ninka la leeyahay ayaa isaguna hadlay wuxuu u hanjabaa NATO wuxuu leeyahay NATO iyo annaga waa noo taalaa NATO iyo annaga waa noo taalaa dib aan uga fiirsanaynaa NATO xiriirka aan la leenahay maadaama ay nagu fiirsadeen dagaalka Iiraan oo nala soo gala intanari ay noo diideen marka maxaan gaashaanbuur ka nahay maxaan marka isbahaysay uga jireynaa waxaan uga jireynaa bale haddaba arida tusoo warka ninkan Al Jazeera waxay leedahay Rubio waxa uu sheegay waxaynu dib u eegi doonaa cilaaqaadkeena ama xiriirka aanu la leenahay NATO kadib marka uu dhamaado dagaalka Iiraan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio oo waraysi siinayay kanaalka